xilka idin saaran ku talagala yay waxbay sheegin oon layla murmin oonaan cilaaqtamin ma aha xisbigu waa inuu murmaa wada hadlaa haddana waa inaanu ku kala tegin oo loo ciiraa halka madaxweynuhu yahay maxaa yeelay ilaahay baa gartay mansuul bay laga dhigay mansuulka waxbaa loo sheegaa arrinka kaa iyo kaa madaxweynow kaasi ma kula qumanyay kuwa ku adkaysta uun in la raacaaba danteenna ah khilaaf baa allihiin alle ka yahay dambe kay horowtaa waxaynu maanta inaa waxaanu soo garannay si wanaagsan oo aqbashaan baanu ilaahay idinka rajaynaynaa golahan oo kale nin quroo madhnaanka taga ma leh nin ceeb buu kala tagaa war wuxuu muxuu ku hadlaayo ninna ammaan buu kala tagaa war ninku hadal toosnaa waa la yidhi ninna inkaar buu kala tagaada wuxuu yidhi anigu waxaa raggu gartay diidi ninna ducuu kala tagaada aqbal buu kala tagaa shirweynaha adduunkuna ma dhammaado oo ma qaalla baxo xubin qaloocan haddaanad qaadan mataquman baabaa laysugu qabaa wacdigu weynoo kala dambaynayaa waxaan ku soo gaabinayaa khilaafkaa halkaa inuu ku go'o oo idaacaduhu maqlaan farxad iyo kalgacal iyo isu tanaasul baynu ku dhisnay xawla qarqari baynu joognaa laynu ictiraafay waxaanu aragnaa dee sidaa ay tahay baanu aragnaa waanu qaadanay waxay tahay waanu qaadanay waanu aqbalnay maadaama aanu aqbalnay inay dhexdhexaadin gasho guurtida qaranka ay tahay waxayna tahay haddaad rag arrin u dhiibato maaha si aad doonaysa inay kuu xukumaan in kastoo ay adag tahay siday wuxu jireen haddana waan aqbalay amadii waan aqbalay si kasta haygu adkaato danta qarankaan u aqbalaya waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi gaarkaan idinka diyaarinay munaasabadaasi loo sameeyey shaacinta qodobadii ay soo saareen golaha guurtida ee somalilan taas oo ka qabsoontay xarunta qasriga madaxtooyada ee somalilan waa farsamadii iyo iskudubaridkii barnaamijkan maxamed caqli hadi iyo filim qaadistii cabdigaab nimada waxa aakhirkii isa soo hor joogsaday aniga iyo madaxweynaha iyo anigoo guddoomiyaha iyo madaxweynaha tartankaygaasi weliba xadaafir badan aan u baahnayna wuu keenay oo xisbiga dhexdiisa iyo qaran ahaan aan u baahnayn haddii tartan dhaco cid baa adkaata cidna waa la reebaa cidna way soo baxdaa kulmiya murashax qurun buu yeelanaya sida xisbiyada kaloo dhanba malaha qoladiina kubadda taqaana halkaas oo eegaysaa xalay isbayno koobkaysta waa laga saaray saaxadda iska laalaabatay englandoo ciyaaraha usoo asaastay iska laalaabatay markii kulmiye iyo odayaashiisii iyo dadka xooggiisii baadeen ninka la reebay ee laalaabtay waa aniga taana waan qaatay ninka murashaxee loo daayay xisbiga in murashax noqdana waa madaxweynaha waa ciyaar geyma oo siyaasaddu iyo kubadda iyo noloshu ay leedahay may ahayn inanu wala murashaxnimada waan qaadanaya haddii kale waan burburinaya ma noqonayso haddii la reebo waan dudaya ma noqonayso haddii gardarre iyo wax laga geystay ciil baan ku qabaya intaaba waan ka weyna xisbiga waa u turaynaa lexjeclaanu ka qabnaa mustaqbal dheer oo boqolaal sana dalka talaya baan doonaya anigu haddaan waxa waaye maayar kulmiya haro waxna ma waaye haddaan murashaxnimo ka haro oo kalaamadii xisbigeed oo leh qarankeenu tumaanta ku jirana waanu u baahannahay in cid laga adkaato ay qaadato oo danta iyo qaranka u durto tan aniga wax weyn kuma aha dad badan oo cadhaysan oo saaxiibada oo taageerasha waan huba inay jiraan laakiin dalkan rag badan oo kamid a waxay usoo mareen waxaan ka adag qofku marka hore hadduu naftiisa qura wuxuu doonayo shaqo dan gaara wuu dodi karaa kolomeel buu guuri karaa wuu cadhoon karaa wuu boodboodi karaa caaqalkan iyo mustafa waxaan uga mahadnaqayaa berigii dhaweyta kulmiya dhexdiisa khilaafka weli ka joogay waa tii annagoo cerkaa isla marayna guurtida tiri wax walba siiraayo kuula jiyaan aqbalay wax alliyo wixii ag joogay maalinta way ga dhaqaaqeen islaantii hooyana igu dhaho waa fulay kaynu moodina ma aha wuu falan yahay lacag baa la siiyey wixii doonaa lagu yiri
markaa geed baan iska hoos fadhi jiro waaba ka raysto dhowr buug baan akhriyay anoo geedkayga isfadhin bay labada caaqile cidgala yimaadeen waa ninkani mustafa waaba yaabo haye warama way wareystaan iska xaalkaa qorano hab maqlaysa bay idhaahdeen halkeedoo taagooda adu baa ku dambeyn oo aanu ku garab taagana waa labadooda keliya iyo geedkaa malaha sharci shiro qof kula ima soo gelin sidii un bay labadooda ila joogeen waxay ma weydiiyaan waxaa dhacay way yimaadaan waxoogay talaa ay siiyaan iminka markii dadkii kusoo wada jabay murashaxa ee dhowrba laga joogsaday ayay ku yidhaahdeen oo abtii dee durba xaggee anagii baan fogay ka yara askariga eryaaya ka xaggaa u riixaya abti waa anagii waa qoladii geedka markaa abse bal iminka si un baynu u farsameyn oo mar daba la odhan maayo labada oday maxaa ahayna garkii waa weydiye iyagana taasana soo dhex martay